والصلاة والسلام على رسول الله. ودنا ورفافنتا iyo warbaahinta iyo ummadda Soomaaliland ba dhamaanteed waanu salaameynaa. Sida aad u arkayseen waxaanu ka soo noqonay safar uu madaxweynuhu hogaaminayo aan ku tagnay Itoobiya. ujeedada safarkaas wuxuu ahaa martiqaad ay dawladda Itoobiya u fidisay madaxweynaha cusub iyo dawladdiisa si arrimo badan oo dalka labada dal danahooda looga wada hadlo. safarkaas guul buu ku soo dhamaaday si aad u horsareysa oo maqaamkeedu aad u sareeyo ayaa naloo soo dhaweeyay oo meel walba laga hor yimi oo meel walba waxa la leeyahay wixii mataqaana protocol dawladda lahayd laga hor yimi dhammaan maxay tahay arrimihii laga wada hadlayay guul ayay ku dhamaadeen si wanaagsan baa looga wada hadlay prime ministerka iyo dawladdiisa iyo dhammaan laamiha dawladda muhiimka ah ee aan markaa danuhu naga dhaxeeyeen waanu iswada aragnay waanu ka wada hadalay arrimo badan baanu isla soo qaadnay markii aan shirarka guud ku jiray iyo markii aanu gaargaarka loo shirayba madaxweynaha iyo prime ministerku gaar bay soo hadleen soo arkeen wasiirada hadii aanu ahay dhigay kuwii wasiirada dhigayaga ahaa baanu iyagana la kulmaynay mar walba arrimo badan baa laga wada hadlay hadii aan soo idin guud maro oo soo koobo kuwa ugu muhiimsanaa waxa kamid ah xagga nabadgelyada oo labada dal mar walba iska kaashan jireen oo in la wada dagaalamo oo la iska kaashado la dagaalanka argagixisada iyo wixii kale ee nabadgelyada labada dal fadqalaynaya ama dhibaato u keenaya ayaa kamid ahaa arrimo badan oo kala laga wada hadlay waxa kamid ahaa ugu muhiimsanaa kuwa ganacsiga iyo dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo isku xirkooda waxa laga wada hadlay maxayto dhiskii iyo balaarintii dekadii cusbeyd la dhisayay maxayto wadadii cusbeyd ee Togwajaale ilaa iyo Berbera arrimaha in dhaqso loo bilaabo oo ay dhaqso u hirgalaan ayaa la isku afkartay oo mataqaana la isla meel dhigay waxa laga wada hadlay ganacsiga oo loo arkay ganacsiga Itoobiya iyo Soomaaliland ka dhaxeeya inaanu ahayn mid isu dheelitiran ee loo baahan yahay in mataqaana la isu dheelitiro arrimaha dhibaatooyinka leh sida qaadka oo kale oo mataqaana dhibaato weyn Soomaaliland ku haya ayaa la isla soo qaaday oo mataqaana wax la iskaga afkartay in gudiyo dhaqaale oo labada dhinac la wada sameeyo oo sidii la isugu dheelitiri lahaa oo la isugu dhaqaaluhu labada dalba ay uga ganacsiga ka dhaxeeya labada dalba ugu faa'iideyn lahaa ayaa la isla afkartay waxa iyana aad looga wada hadlay maxay too waxbarashada barnaamij weyn oo aanu la tagnay baa jiray oo waxbarashada ku saabsan oo jaamacadaha sidii Itoobiya deeqay inuu sida la wada ogsan yahay deeq waxbarasho ayay inoo fidin jirtay deeqda waxbarasho sidii aynu uga faa'iideysan lahayn oo qaab ka duwan qaababkii markii hore in badan oo dhalinyaradeena halka ka tagta ama Itoobiya tagta ama deeq ku tageen ama private ba iyagu iskood ha u tageen ama ba lacagta ha iska bixiyeen waxay mawaadiic aan dalkeena in badan dan ugu jireen hadeerto ama aan ahayn kuwa mudnaanta leh ahmiyadda leh ayaa laga soo qaadan jiray waxaanu u bandhignay inay qaabka laga duwo waxaanu ka codsanaa ama haatan aynu u tagnaa inay noqdaan mawaadiic dalka horumarkiisa wax ka taraysa sida dhaqaatiirta oo kale injineerada oo kale hydrologist iyo xagga biyaha iyo macdanta baaristooda oo kale maxay iskuulada farsamada iyo wixii la mid ah arrimaha caynkaas oo waxtarka dalka u leh in loo ridayo horumarkiisa wax ka taraya arrimahaas ayaa kamid ah arrimahaanu meesha kala hadalay tafaasiishooda maxay too meesha ku haboon tahay iyo waxyaha ay qusayso ayaa laga hadli doonaa oo la gaarsiin karaa laakiin guud ahaan safarkaas waxa safar guul ah oo guul ku soo dhamaaday sidaas ayuun baan intaas u baan idinku soo gaabinayaa. Assalaamu calaykum.